waxaynu isbarbar dhigaynaa taangiyada madaafiicda goobta artilleriga iyo rocketkiska labada awoodood ee United Kingdom iyo Turkiga isma barbar dhigayno gantaalaha waaweyn diyaaradaha iyo waxyaabahaas mar kale aynu soo qaadan doonaa laakiin hadda waxaynu isbarbar dhigaynaa waxyaabahan soo socda ka mid noqo macaamiisha aqoon kororsiga ka hesha goobtan taangiyada ingiriisku waxa uu leeyahay 227 Turkiguna 22,038 guud ahaan baabuurta ay u isticmaalaan dagaalka 38,200 ayaa UK leedahay halka Turkiguna uu leeyahay 61,173 xabo artilleriga 71 ayaa UK leedahay halka Turkiguna ka leeyahay 1,038 madaafiicda goobta waxay leeyihiin UK 126 halka Turkiguna leeyahay 1,707 xabo BM hubka loo yaqaano ee rocketka laakiin Soomaalidu BM ka yiraahdaan 29 xabo ayaa wadankani leeyahay UK halka ay Turkiguna leeyihiin 296 isbarbar dhig kooban ayaynu ku sameynay marka ciidamadu ay dagaalamayaan hubka ay qaataan ama taangiyaha noqdeen ama beebayaal ha noqdeen ama madaafiicda goobta ha noqdeen ama baabuurta guud ahaan total marka la eego ay ciidamadooda ku qaataan ha noqdeen laakiin isbarbardhig kumaynu sameynin xag gantaalaha diyaaradaha ciidamadii badda sirdoonkii iyo dhanka dhaqaalaha midna isbarbardhig kumaynu sameynin labadan wadan labaduba waxay ku jiraan dhulka NATO ama xilful Atlas Carabtu u yaqaanaan midna midka ma weerari karo sida heshiisku u yahay haddii laba wadan oo NATO ku jira ay isdagaalaan marka hore in la dhexdhexaadiyo wax isku hayaan la xaliyo haddii la xalin kari waayana in ciidamo ay NATO wadamada kale ee ku jira ay dhexdhigaan haddii ay qabsoomi waayaan in labadaba cunaqabateyn la saaro halkaana lagu dhaawaco dhaqdhaqaaqooda laakiin marnaba wadan kale ma weerari karo haddii ay ku wada jiraan NATO barnaamijkan intaasaan ku soo koobaynaa wassalaamu calaykum